dagaal xoogan ayaa maanta ka soconaya magaalada caasimadda ee Muqdisho oo u dhaxeeya ciidamada Itoobiyaanka iyo waliba kooxaha ka soo horjeeda joogitaankooda magaalada Muqdisho goobaha ay dagaaladani ka dhacayaan waxaa ka mid ah xaafadda Xamar Jadiid gaar ahaan suuqa xaafadaasi iyadoo dagaal midkii ugu xooganaa oo ka dhacay xaafadda suuqa xoolaha ee degmada Hiirwaa goojo ku sugan xaafadda suuqa xoolaha ee degmada Hiirwaa ayaa waxa uu sheegay in 7 qof ay ku geeriyoodeen dagaaladii maanta ka dhacay xaafadda suuqa xoolaha ee degmada Hiirwaa dhanka kale madaxii aad u farabadan ayaa ku dhacaysa meelo fara badan oo kamid ah magaalada dhowr madfac oo nooca BM-ka loo yaqaan oo ku dhacay suuqa bakaaraha gaar ahaan Cirtoogte ayaa waxa ku geeriyooday in ka badan 10 ruux oo ah dad rayida sidoo kale madaxii aad u xoogan ayaa la beegsaday suuqa xaafadda Xamar Jadiid ayaa waxa ku geeriyooday 3 qof iyadoo 2 kamid ah ay ilaa hadda halkaas yaalaan dagaaladani ka soconaya magaalada Muqdisho ayaa waxa barbar socda barakac aad u weyn iyo dadweynaha magaalada Muqdisho ay u muuqdaan kuwa jahwareersan maadaama madaxfiidu ay meel walba ka dhacayso mid kamid ah haween qaxayay oo xoolana la qaxaysay ayaa TV-ga Universal uga warbixisay barakacooda إيربان قحينينا مركا الحمد لله شكر رب العالمين مركا ميدان ماشي يالا دبق هوستيسا ميدان يالون هذا ميدان كوارث واي waxaad inooga sharaxdaa sababta aad xoolaha u qixinaysaan maadaama dadkiiba hadda la bilaayay dadka meeshii waa lagu leedahay ma meesha wax joogi kara miyaa la arkaa wax joogi kara lama arkaa anaguna dadka nafleeyana waa ka cararaynaa maxaa meesha nooga yaal xoolaha aad qixinaysaan marka intee leeyahay xoolaha wax aan qixinaynaa 27 neef waay haddana 10 xabaa naga sii maqan wali Allah oo hor Allah nooga maqan marka muslimiinta Allah u maciino xiriir aan la sameeyno hospitaalka Madiina oo kamid ah hospitaalada ugu waaweyn magaalada Muqdisho ayaa waxa inoo suurta gashay inaan qadka taleefanka ku helno maadaama isku socodka magaalada uu aad u liito daahir dheer oo ah madaxa caafimaadka hospitaalka Madiina daahir dheer ayaa waxa uu sheegay in 30 qof oo dhaawac ah saaka oo kaliya la soo gaarsiiyo marka la isku darsalay iyo maanta waxa uu sheegay in dhaawacyada la soo gaarsiiyo hospitaalka Madiina ay gaarayaan 52 qof daahir ayaa waxa uu sheegay in hadda aysan tabar weynin isla markaana aysan qaabilaad kale u sameyn karin bukaanada ku soo dhaawacmaya dagaalada ka soconaya iyo hoobiyaasha iyo biyamada ku dhacaya meelo ka mid ah magaalada Muqdisho daahir ayaa waxa uu sheegay in guud ahaanba dhaawacyadaasi hadda ay yaalaan banaanka hospitaalka isla markaana ay isku dayayaan sidii ay u caawin lahaayeen dadkaasi dhibaataysan ee ku soo dhaawacmay dagaalada ka soconaya magaalada Muqdisho dhanka kale barakaca magaalada Muqdisho ayaa si aad uga sii soconaya iyadoo dadweynaha magaaladuna ay ku sheegayaan inay hadda isku dayayaan si ay uga baxsadaan magaalada caasimadda ee Muqdisho oo noqotay meel aad u qasan dadweynaha ayaa ku sheegaya inay u baxsanayaan hadda meel ka fog magaalada caasimadda ee Muqdisho ama banaanka magaalada sida ceelasha biyaha afgooye iyo meelo fara badan oo kamid ah gobolada dalka iyo aad dadku ay ugu qaxayaan dhanka gobolka Shabeellada Hoose magaalada Muqdisho ayaa sidoo kale maanta wadooyinkeeda aad ay u